Soomaaliya waxa ay bilowday howlgallo qorshaysan oo ay ku xasilinayso deegaanadeeda. Puntland waxa ay leedahay ciidamo military oo aad u fara badan. Ciidamada Puntland boqolkiiba 90 waa ciidamo kayd ah, xagga inta kalena 10 ka soo harayna ay yihiin ciidamada difaaca ee howlgalkooda u shaqeeya. Puntland waxay ka mid tahay meelaha ugu xasiloon marka la eego Soomaaliya, waxaana ay tahay meel istiraatiiji ah, waxaana lagu magacaabaa Puntland State of Somalia oo ah dhulka uduga Soomaaliya. Waxaana ay dhacdaa dhul baraha ugu caalamisan adduunka oo dhan halka iskaga dhacaan badda cas iyo tan Hindiyan. Puntland waxaa la aasaasay sanadkii 1998 waxaana ku midoobay gobollada Bari, Nugaal, Mudug, Sanaag, Sool, Highland iyo gobolka Gaardafuu. Puntland waxa ay ka mid noqotay meelaha ugu horeeya dhanka nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliya, waxaana ay ka qayb qaadatay sidii loo dhisi lahaa dowlad dhexe oo dalku u yeesho. Wixii intaasi ka dambeeyay waxay garwadeen ka noqotay Puntland sidii loo hagi lahaa habraaca dowladnimada iyo xasiloonida dalka. waxaana markii uu dalku yeeshay dowlad dhexe ay Puntland ka mid noqotay meelaha ugu horeeya ee istiraatiijiyadda dowladdu ay ku dheehan tahay. Puntland waxa ay leedahay golo baarlamaan oo sharci dejin iyo golo wasiire, madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen. waxaana Puntland ay leedahay maxkamad dastuuri ah iyo golo ciidan oo dhisan. waxay Puntland ka mid tahay meelaha ugu wanaagsan dhanka dhismaha ciidamada Soomaaliya marka la eego. Puntland oo adduunku u aqoonsan yahay inay tahay garabka koowaad ee Soomaaliya. waxa ay Puntland arrintaasi u shaashay in ay ka mid noqoto hoggaanka dhaqan ee Soomaaliya.